xidhiidhintii isagaa dambaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii walidalik ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaal guday maaha buu nabigu yidhi ninka abaal guday dee tolka markaa isku fiicantihiin iyanay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiin oo wax istartaan dee waad abaal gudday markaa wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalahaa buu nebigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثaةulifki markay dhacdadii been abuurka ee laga faafiyey caaisha ridwaan ullaahi calayha ee abi bakar ayaa wuu dhaartay wuxuu ka dhaaranaya nimankan warkan rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey laakiin dadka badh baa jira warka aan hubina iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warka waxaa kaloo ka mid a muhaajiriinta mistax ibnu ahaas waxaa ka mid a xamna waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay mistax ibnu ahaas ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga marka abibakar qaraabanimo iyo tolnimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila abibakar baa wuxuu biilaa mistaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin abibakar arrintii buu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin waan ku dilayaa iyo waxbaan samaynaya kale abibakar ma leh bas wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyahy wax damba ku siin maayo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii usoo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaha yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu ilahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinba baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala in ilaahay dembigiina dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo mistax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxiba waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii aharihi falyasil raximah ama man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aharihi falyasil raximah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahy ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam